hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ee ka tirsan xisbul xaakimka talada haya Aadan Barre Ducaale goor dhaweyd ayaan weydiiyey inuu ii faahfaahiyo go'aanka looga joojiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu ka qayb galo isu imaatinka la qorsheeyay in Nairobi uu ka dhaco. dowladda Kenya waxa weeye dowlad aqoonsan jiritaanka dowladda hadda ka taliso Soomaaliya. dowladdaas waxay member ka tahay African Union, waxay member ka tahay IGAD, waxay xiriir la leedahay dowladaha Horn of Africa. annaka haddaan nahay dowlad ma ogolaanayno in waddanka annaga uu noqdo waddankii looga duulayo Soomaaliya oo khalalaasan looga ridaayay ciidamada naga joogan Soomaaliya. waxaan ballan qaadnay inaan waqti kasta aan ka shaqeyno nabadgelyada iyo xasiloonida dowladnimo inay ka dhalato waddanka Soomaaliya. marka qolooyinka nabadgelyada loo xilsaaray banduulaha ciidamada booliska Kenya iyo qolooyinka kale iyo wasaaradda amniga ayaa go'aanka gaareen wayna la hadleen dadkii qalqaalinayay. waxaa la yidhi ninka raba inuu xisbigiisa u ololeeyo marka xisbigaas waxaa loogu talagalay in lagu shaaciyo oo loogu ololeeyo waddanka Soomaaliya. marka waddanka Kenya maanta ma ogolaanayno, berri ma ogolaanayno dowlad kasta oo Soomaaliya ka dhalato inay garab la siiyo oo la garab istaago mooy in la dib u noqdo dowladda Kenya qayb kama noqonayso. laakiin Aadan Barre maxaa ku xaqiijinaysaa in la doonayay in la dumiyo dowladda Soomaaliya ama laga weeraro halkan? ma wada sharci ahaan sharciga Kenya ma qoraayo xisbi kale oo ajnabi ah oo waddanka xisbiyada ka dhisan waddanka Kenya kamid ahayn oo waddan kale ka jiro inuu shir public ama political rally inuu ku qabto waddanka annaga sharci u yaala ma laho. laakiin waxaan ogsoonnahay tan iyo markii Soomaaliya burburka ay gashay ilaa iyo dhawaanahan in shirar siyaasadeed iyo isu imaatino siyaasadeed ay siyaasiyiinta Soomaalida ku qabanayeen magaalada Nairobi. muxuu kaga duwan yahay marka Cabdiraxmaan Cabdishakuur? wada siyaasadda Nairobi way kala tahay. siyaasi hadduu imaado waddanka Kenya waa loo furay Soomaalida meel ay joogaan qurubada kuwa joogaan kuwa Soomaaliya joogaan inay barkood kuwa bukaa ay imaadaan oo caafimaad soo doontaan waddanka Kenya inay ka ganacsatadaan inay imaadaan ku naftaan. marka shirar yar oo dad shakhsi taas anaka muhiim u aragno laakiin shir la shaaciyay oo public laga dhigay oo intaasoo kumaadad isku yeerayo taas sharciga waddanka Kenya ma ogolo. hadda ka horna shir noocan oo kale kama dhicin waddanka Kenya oo laga soo horjoodo dowlad ka dhisan Muqdisho. marka ma laydinka codsaday ma dowladda Soomaaliya idinka codsatay tallaabadan inay qaadaan? maya sharciga waddanka annaga ayay waafaqsanayn amniga waddanka annaga arrimaha u dhisan bay waafaqsanayn xiriirka aan la leenahay dowladda Soomaaliya ayay waafaqsanayn xiriirka aan la leenahay wadamada kale oo ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayay waafaqsanayn. waxay waafaqsanayn arrinka annaka aan ka rabno inuu Soomaaliya ka dhaco. Soomaaliya annaka aan ka rabnaa inuu noqdo waddan degan waddan dowladdiisa ay fursad la siini inay ummadda Soomaaliya ay fursad u siiso siday waddanka ugu degi lahaa oo nabadgelyo waarta looga heli lahaa. Aadan Barre Ducaale ayuu ahaa. maraan isku dayno inaan la xiriirno Cabdiraxmaan Cabdishakuur si waraysi aan uga helno nooma aanay suuro gelin. ha yeeshee bartiisa Facebooka ayaa waxa uu ku soo qoray hadal uu raaligelin ku siiyey dadkii isu imaatinka ka soo qayb galay maadaama isu imaatinka uu baaqday. waxaana uu eedayn dusha ka saaray dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo oo uu sheegay in uu ka dambeeyey in isu imaatinka uu baaqdo. Somali Fan TV subscribe.